daawadayaal banaanbax xoogan ayaa xilligan aan kula hadlayo wuxuu ka socdaa bartamaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waxaa banaanbaxan soo qaban qaabiyay haween Soomaaliyeed oo aad uga xumaaday fal kufsi ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana hadda baraha bulshada aad loogu hadalhayo. kufsigan rag afar ka kooban ayaa la xaqiijiyay inay u geysteen gabar caan ka ah baraha bulshada oo lagu magacaabo Anfac. gabadhan Soomaaliyeed ee kufsiga loo geystay ayaa baraha bulshada soo fariisatay isla markaana nin ay horey u kala tageen oo lagu magacaabo Roberto ayaana ay ku eedeysay in rag uu u soo adeegsaday kuwaasi oo kufsi kula dhaqaaqay. waxaana la arkayay muuqaalo baraha bulshada qabsaday raggan oo leh raali gelinsi Roberto Alasoonin lagu magacaabo oo gabadhan qaraabo ay yihiin marna nolosha ay wadaageen hase ahaatee markii dambe ay ku kala tageen. haddaba gabadhan kiiskeeda ayaa noqday mid la yaab leh naxdin xambaarsan iyadoo ay jiraan dad Roberto ku cid ah oo gabdho iyo wiilalba isugu jira oo arintan difaacaya isla markaana beeninaya. banaanbaxa ka socda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaana wuxuu yahay banaanbax arintan looga dhidhinayo iyadoo la sheegay 2023 in uu ka dhacay kufsigan magaalada caasimadda ee Muqdisho. gabadhana ilaa iyo hadda ay qarsanaysay laakiin markii dambe ay qarsan weysay oo banaanka ay soo dhigtay. Roberto Alasow waa la wareystay oo Daahir Alasow ayaa wareystay waxaana uu sheegay in isaga iyo gabadhan mar ay nolosha wadaageen marna ay xumaan dhex martay 2022. sidaa daraadeedna aysan jirin cid isaga uu soo dirsaday oo yiraahday ii kufsada ee ii dila gabadhaasi. sidaa daraadeed markii isaga ay kala tageen kadibna rag badan ay gabadhan soo martay oo ay kala tageen kuwaasi oo uu maleynayo inay ka dambeeyaan hawshan. haddaba daawadayaal wuxuu sheegay Roberto in isaga aan lagu eedeyn karin guud ahaanba wixii halkan ka dhacay waxaana uu ka dalbaday guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed in fuustadan isaga lagu soo riixayo aan lagu qaldamin oo aan lagu kadsoomin. Anfac muuqaalkeeda qof kastoo arkay dabcan anigu maanan arkin laakiin dad ka sheekeynay ayaan arkay. xumaanta qofka bini aadamkana lama raadiyo laakiin dad badan oo raadiyay oo ka hadlay arintan waxay xaqiijiyeen in gabadhan si ka baxsan bini aadamnimada ay ula dhaqmeen afartaas nin. wararka qaar waxay leeyihiin meesha kufsiga uu ka dhacay ma aha Muqdisho oo waxa uu ka dhacay meel kale. wararka qaar waxay leeyihiin 3 nin oo Soomaali ah 1 nin oo Ethiopian ah ayaa gabadhan kufsaday laakiin anaga cadeyntaas ma hayno. laakiin waxa la sheegay oo la cadeeyay in Roberto iyo Anfac ay isku guursadeen Muqdisho. haddaba daawadayaal Anfac ayaa waxay tahay gabar cadaalad doon ah. dumar badan oo Soomaaliyeed oo Anfac been u maleynay waxay sameynayso oo Anfac u maleynay in lacag doon ay tahay ayaa Anfac ku beeniyay arintan laakiin markii muuqaalka iyagu ay soo arkeen sida ay sheegeen waxay garowsadeen in gabadhan Anfac ah xadgudub loo geystay. raggii xadgudubka u geystayna laga rabo dawladda federaalka Soomaaliya inay gacanta ku soo dhigto si cadaalad loo marsiyo. Anfac oo ah gabar Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed ah oo ah gabar nala dhalatay dhamaanteen maanta cadaaladeeda inaan u istaagno ayaan u baahanahay. Soomaaliya cadaalad in laga helo way adag tahay. maxkamad kasta hadii aad tagtana hadii aadan laandheero ahayn cadaalad ma heli kartid oo tolkaaga uusan hubaysnayn waa hubaal. ma garanayo Anfac qabiilka ay tahay laakiin waxaan hubaa in Anfac hadii si dhab ah Soomaali ugu istaagto in cadaalad buuxda ay heli doonto. ninkan hadii kiiskan uu ku lug leeyahay iyo hadii uusan ku lug lahayn hadii cid kale ay ku lug leedahay in la soo bandhigi doono oo banaanka loo soo bandhigi doono kiiskan ayaa la rajeenayaa. haddaba banaanbaxa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ka socda ayaan idin maqshinayaa. أنا كوفسي رالي كمنين كمن Soomaaliyeed aan nahay in wiilasha Soomaaliyeed anaga sharafteena difaaci lahaayeen
gudbiyaan gabar u xareeyaan ee fursadahan wax la fiirsan karo haba yaraatee ma gabar gabdhaha Soomaaliyeed oo idin way ku dulmayiin ragoodaana ilay arfa cadaaladdeena rabnaa Faadumo yar cadaaladdeena rabnaa gabar walba iyo hooyo walba Soomaaliyeed cadaaladdeena rabnaa anaga gabar walba cadaaladdeena rabnaa waxa anaga soo baxnay oo bil Ramadaan ay tahay oo meeshaan oo taaganahay wax kale maaha anaga waxaan rabnaa cadaaladda anfac waxaan rabnaa cadaaladda Faadumo gabar Soomaaliyeed oo soo baabiya waxa uu dulqaadan karna ma aha jaamacada iskuulada gabdhaha u dirsanaa rag Soomaaliyeed anaga aan dhalan inay ka talaafayaan ma aha kufsiraali kamani halaalka badan dulqaad ku dhamaanay kufsiraali